dunida aynu maanta joogno waxa loolan adag lagu jiraa hubka ugu casrisan dunida sidii loo soo saari lahaa muxuu yahay gantaalka xawaarihiisu ka dheereeyo codka ee uu Mareykanku tijaabiyay Mareykanka ayaa sheegay inuu ku guuleystay tijaabada gantaal aad xawaarihiisu u sareeyo oo 5 jeer ka dheereeya xawaaraha codka tijaabada gantaalkan ayaa dhacday toddobaadkii hore gantaalka ayaa laga sii daayay diyaarad Elbrexio uun ka hor inta uusan motorkeedu bilaaban waa tijaabadii ugu horeysay ee noocan ah ee uu Mareykanku ku guuleystay tan iyo sanadkii 2013 tijaabadu waxay dhacday iyadoo Mareykanka iyo xulafadiisu caalamiga ah ay si dardargelinayaan sidii ay u samaysan lahaayeen hub isku dheelitiran dhanka kale Ruushka iyo Shiinaha ayaa labaduba waxa ay sheegeen inay samaysteen oo ay tijaabiyeen hub la mid ah kan haatan uu Mareykanku tijaabiyay bishii Luulyo Ruushka ayaa sheegay inuu ku guuleystay tijaabada gantaal nooca loo yaqaan Zircon oo ah hub uu madaxweyne Vladimir Putin ku tilmaamay inuu qayb ka yahay jiilka cusub Mareykanka ayaa horey u sheegay in kordhinta kaydka hubka nuclear-ka ee Shiinaha iyo Ruushka ay tahay arrin walaaceed leh hubka xawaarihiisa sareeyo ayaa in ka badan 5 jeer waxa uu ka xawaaro sareeyaa dhawaaqa haddii aan si kale u dhigo waxa uu saacadii jaraya xawaare gaaraya 6200 kilomitir saacadiiba Mareykanka ayaa kordhiyay kaalinta uu ku leeyahay dhoofinta iyo iibinta hubka noocyadiisa kala duwan sida uu sheegay maxad cilmi baaris ku sameeya arrimaha hubka oo fadhigiisu yahay Sweden Mareykanka ayaa 5 sano ee la soo dhaafay waxa uu dhoofiyay 37% hubkii la iibiyay guud ahaan caalamka goobaha kaydka gantaalaha ayaa ah sirta ugu sareysa wadan kaste waxa jira goobo been abuur ah oo loo sameeyay si loo marin habaabiyo wadamada cadawga hadii aad warbixintan ka heshay daawada nagu dhiirigeli oo si share gare hadii aadan hore asxaabteeda uga mid hayn fadlan ku soo biir bogga wariyo Xuseen Cali Xuseen siina share gare si uu gaaro muuqaalkan saaxiibo badan oo adiga kala ah